shaqada faraha badan leh halkan aad nagu tusta maanta runtii tusaysa haddii gacmaha la isqabsado in wax badan la qaban karo. 2 bilood waxaad soo qabatay oo aad wax naga tustay waxay tilmaamaysaa sanadka soo socda in waxa wax ka badan ay idiin suuro galayso inaad qabataan. wasaaradda maaliyadda iyo gobolka shaqooyin badan baa ka dhexeeya, shaqooyinka maaliyadeed baa ka dhexeeya, waxyaalo fara badan oo aan ka wada shaqayno oo ay ka mid tahay isxilqaan naa way naga dhexeeyaan. waxaan aad ugu faraxsanahay marka ay waqtigiina noqoto inaad si fiican shaqadiina uga soo baxdaan, tusaalena dadka kale Soomaalida aad u tihiin. waxaan rajaynaynaa anigoo aan hadalkayga ku dheeraanayn in dalkani halkii uu yaallay ka soo baxayo ayaa xaqiiqo ah oo muuqata. dadkayga waaweyn odayaasha xasuusan dalkani siduu ahaan jiray mar walba waxaa kugu soo dhici talow maxaana helay ayaa kugu soo dhici, maxaana helay, maxaa nagu dhacay. dadka yaryar ma garanayaana dalkani siduu ahaan jiray. wuxuu ahaa dal adduunyada kale la tisqaada oo la socda oo la tartama, oo ardaydeedu ardayha kale la tartanto, oo ciidankooda ciidamada kale la tartamo. wuxuu ahaa dal tirsan buu ahaa. wuxuu ahaa dal lala tashado marka Afrika iyo adduunyada kale meel tegaysa lala tashado buu ahaa. si fiican baan anigu xasuusanahay siduu ahaa dalkani 70-nadii 60-nadii iyo 80-nadii intii hore. marka waxaa noo muuqata koob hadduu dalku sidaa ahaan jiray innaguna aynu sidaa ka dhignay inaynu haddana ka dhigi karno ayaa muuqata. calaamad waxay noogu waxa weeye maanta shaqada halkan laga soo qabtay iyo tusaalaha ay noo tahay. waxyaalo fara badan baa qabsoomay guddoomiye waa ku garab taaganahay, waa wada shaqaynaynaa insha Allah. dalkan waxaan ku soo dabaali doonaa inagoo madaxdeena daba socona, madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxda kale. wuxuu dalkani noqon doonaa inuu adduunyada la tisqaado oo adduunyada la dhaqaaqo ayaa insha Allah aan filanaynaa. intaasaan anigu kusoo gabagabeynaya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waan ku hambaliyeynayaa guddoomiye shaqada fiican aad soo qabatay. asalaamu calaykum.